labadii bishii Juun maanta oo kale sanadkii 2009 waxa magaalada London ku geeriyooday siyaasi Cabdi Xasan Buuni oo ahaa wasiirkii hore wasaaradda xiriirka golayaasha ee Somaliland oo haatan geeridiisa laga joogo muddo 10 sano ah. الله ha u naxariistee marxuum Cabdi Xasan Buuni ayaa soo noqday ra'iisul wasaare ku-xigeenkii hore ee dawladda ugu horeysay Soomaaliya ee uu hogaaminayay Aadan Cabdullaahi Cusmaan Aadan Cadde. haddaba Cabdi Xasan Buuni oo muddo dheer ku jiray siyaasadda iyo ka qayb qaadashada horumarka dalka waxa uu ahaa shakhsi leh taariikh dheer isla markaana dalka ka soo qabtay xilal kala duwan. haddaba iyadoo aan la soo koobi karin taariikhda ballaaran ee marxuum Cabdi Xasan Buuni oo maanta 10 sano laga jooga geeridiisii waxaan halkan idinku soo gudbinaynaa taariikh nololeedkiisa oo kooban. الله ha u naxariistee marxuum Cabdi Xasan Buuni waxa uu ku dhashay magaalada Boorama sanadkii 1935 dhinaca waxbarashadiisa asaasiga waxa uu dugsiga hoose ka galay dugsiga elementariga ee iskoolka ee magaalada Boorama sanadkii 1946 iyo 1948 waxa uu dugsigiisii dhexe ka galay magaalada Sheekh sanadkii 1953 waxa uu magaalada Cadan ku qaatay koorsooyin dhinaca maamulka iyo maareynta taasi oo uu dhiganayay muddo 9 bilood ah. sanadii 1960 marxuumku waxa uu xubin ka noqday baarlamaankii ugu horeeyay ee la doortay ee Somaliland midowgii labadii dal ee Somaliland iyo Soomaaliya gaar ahaan 1 bishii July sanadkii 1960 waxa uu marxuum Cabdi Xasan Buuni uu noqday ra'iisul wasaare ku-xigeenkii ugu horeeyay ee dawladda Soomaaliya sanadkii 1964 ayaa mar kale loo doortay jagadii baarlamaanka ee Soomaaliya intii u dhaxaysay sanadkii 1985 ilaa sanadkii 1991 waxa uu ahaa gudoomiyihii shirkadda kalluumaysiga sanadkii 1995 ilaa 97 waxa uu soo noqday gudoomiye ku-xigeenkii guddida nabadeynta Somaliland bishii July ee 2003 ayaa madaxweynihii hore ee Somaliland Daahir Rayaale Kaahin waxa uu doortay inuu dawladdiisii markaasi u dhisayay ka mid noqdo waxana uu ku soo daray golihiisa wasiirada isagoo markaasi noqday wasiirkii wasaaradda xiriirka golayaasha taasi oo uu ka hayay ilaa intii uu ka geeriyoonayay. golayaasha nooma cusba inaan marti qaadno oo isugu nimaadno munaasabad tanoo kala ah maanta se way ka duwan tahay tani oo waa nooc ka duwan waxay kaga duwan tahay laba arrimood mid weeyaana xildhibaanada golaha wakiilada oo 13 golihii hore ay ka joogaan 69 kalena ay cusub yihiin. الله ha u naxariistee marxuum siyaasi Cabdi Xasan Buuni ayaa maruu ku sugnaa magaalada Boorama waxa uu si qoto dheer uga hadlay midowgii Somaliland iyo Soomaaliya sanadkii 1960 iyo waxyaabihii laga dhaxlay. وهذين نهاي جدوينها نول بان كحكيسين أونن إن أوروبا يلوكت ما زاينان دون مركا هذين السيدان نهاي نيالي هالبونين إن الجبال يبدو ما تذكر كلام أول الصعود إن أول الصعود يتكلم وحينه وإنما ذي الجبال الجريئة أي هواك الجبال الجريئة كذا عنه سومالي الآن waxay inasiisay ama aan ka helay ama aan ka haysano inaynaan ka helin Soomaali weyntii wixii ka horeeyay 29 aynu aaminsanay inaynu ka raysanay oo haddaad siyaasadda u eegto dhowrka dhinacee looga raystay waxaynu 60kii inagoo laba beelood waaweyn oo saylac degan يبورني وزيلة يبورني بيستريك أوراني شاب كرسي بقى ينقص صدق هي صدق كي كرسي
markaas Somaliland xorriyadoodii ay ku gaareen ee Ingiriisku siiyey santii kursi baynu la tagnay Soomaali weyn ilaatii Maxamed Siyaad ee ugu dambaysay oo inay way gaadhay santii kursi ay waliba mid bay naga dhacay afar kursi saddex gabadh kursi iyo mid ciiso faraxsan tahay iyo ku lahayn baarlamaankii weynaa ee Soomaaliya Maxamed Siyaad وزير كلية بين الولي والأسرة وأنا أسمع جري كل يوم بقولوا كيلو متر بين الجودة وأنت كسر عن حمر وسعودي وحين ما انتهى بعدين كيلو حين كلنا صدم بين كلنا أول هذان هي لبدين كلنا وعلينا أفر وزير يستدعي وزير كحجين يوم كيف كله أصلا أو هيستنى أو تاريخنا هي نسيب إلهي نسيه وحين كف عنه كون هريرها كجوسنا إلى لنا الواجب عند قطعي هذه عالم كيا اعتراف لقدونية ذاك وحلو اللي سومالنا نقول سجلة وجنتيه متقال فوق كذا دعية متجريد وحقرة قول لي سيدي اعتراف له هي الوجود على رجيو حوين ما أبعد وول وحقرة هو أي كجسوا هرجنا سومالنا ولا علينا إنه يكبه لي سومالنا توصل إلى حمل أنا قال أنا بقول تفصلي كل حاجة بيجينا هاي جبت لك والله إن هاي الساعة أو وأصور ويان يا مدحوينا الشيء الدائرة يا لك هين وعلينا حكومة والوقت ما يلو حكومة هذه ما علينا حكومة سو كان إذا بريء البيت كيو لو وجد دائرة يا لك هين مدحوينا maxaynu ka helay hadaynu inta haday siyaasaddiisa dhaqaalaha iyo waxbarashada u soo noqo maanta Soomaaliland markay soo noqotay jaamacadda kaliya sanadkiiba aawo professor Salaaman inta ka soo baxay sanadkii ugu dambeeyay wali ka soo baxay sanad walba inta saafilayna Salaaman وكا إنت هذه الصومال هذا المسيري هرنا الجامعة ما تفهمين حاجة دقالة إيه كسر دريق الدروب هي أو بس حاجة كحرنا هاي أو بايع من الشركة هنا سيدا إيمكا dhanka kale Cabdi Xasan Buuni waxa uu ahaa ganacsade weyn oo guud ahaan gobolka Awdal iyo Soomaaliyaba si weyn looga yaqaanay waxaana uu magaalada Boorama ka dhisay hoteelka caanka ah ee Harawa oo ah hoteelkii ugu horeeyay ee magaalada Boorama laga dhisay siyaasi Cali Khaliif Galayd oo kamid ah siyaasiyiinta Soomaalida ayaa ka waramaya taariikhda hoteelka Harawa hoteelkaas Harawa la yiraahdo taariikhdiisa madin dadku inta badan waa hayaan odayga Allah u naxariistay Cabdi Xasan Buuni yaa ahaa qoliyihii doorashadii 1960 February ku soo baxay oo ku soo galay baarlamaankii markaa Somaliland Ingiriisku uu doorashadii ugu dambeysay dhulka laga qabtay isagoo USB ah iyo ku soo galay ka bacdi SNL USB waatay noqotay wixii dawladdii dhowrka cashe halkan lahaa la dhisay xamar la tegay marka Cabdi Xasan Buuni Allah u naxariisto waxa lagu magacaabay ku-xigeenka ra'iisul wasaaraha dawladdii qaranka ee markaa la dhisay isla markiiba waxaan u maleynayaa bilo ka bacdi hoteelkaas uu qabanqaabadeedii galay inuu dhiso kooruna ama dabayaaqadii 60 ama bilowgii 61 iyo radio Hargeysa tartan galiyay oo yiri cidii magaca u soo bixisa hoteelka lacag 500 ah hadda waa 500 oo waaga yaan bixinaya 500 oo shilin $500 dollar waaga waxba kuma xisaabsan lacagtu bayna ma soo gaari ma 500 oo shilin markaa ah Soomaali ah yay ahayd taariikhii haddaan dib ugu noqdo waaga uun iskuulka secondary school yaan ku jiray markii horena Camuud ahaa bishii February 60kiina sheekh loo raray markaa uu odaygu hoteelka warkiisa bilaabay annagu sheekh baan joognay waxaanu isku qolahayn xoogaa
tol siyaasadeed ma ahayn. Salmaan Axmed Guuleed, Professor Salmaan Axmed Guuleed oo hadda madaxweynaha iskuulka Camuuda ayaanu boqol yar wada deganayn. Kalaas buu markaa iga dambeeyey. Waaga waa la isu soo galay, la ismaba aqoon. Camuud markaan tagayna weligii Camuud iyo Hargeysa lafteedaanba arag. Marka aan secondary school Camuud aan galayno sheekh iyo Burco iyo bariga un mooyee. Salmaan saasaanu isku barannay. nin walba dhulku ka yimi iyo siday wax yihiin iyo taariikhda iyo waxaasaanu isbari jir. Salmaan isaga markaa barnaamijka ama juqraafiga qolyahaas Reborame dooxada Harawo la yiraahdo warkeeda markaasuu aan ka helay, kama qashin laakiin warka yar helay. xamarna markaa waxaa laga dhisay hoteeladan Shabeelle iyo Jubba iyo meelahay ku dhaataan webiyadaas. anna haddii Cabdi Xasan Boone uu noqday ninkii hoteelka dhisayay, Salmaanna warka ay 500 baan helay. Waaga waxay noo ahayd lacag aad iyo aad runtii u badan, wax intaa la egba markaa koorto imaba soo gelin. qolyaha iyagii Salmaan maalin waa dhaweyto aan magaalada aan tagay iskuulkii Camuud tagay waxba igama soo gaadhin. haddaba intaasi ayaan ku soo gabagabeynayaa taariikhdii siyaasi Cabdi Xasan Boone oo haatan geeridiisa laga joogo muddo 10 sano ah oo ku beegan maanta oo kale 2 bishii Juun ee sanadkii 2009 ku geeriyooday magaalada London. taariikhdan dib idin xasuusinayay, dibna bulshada idinla wadaagay anigoo Axmed Diire Ciiltira.